madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole ayaa maanta tababar soo xiray ciidamo tiradooda lagu qiyaasay 3,000 oo askari kuwaas oo lagu talagalay inay dagaal kala hortagaan ciidamada hawiyaha ee xaruntoodu tahay Muqdisho iyo kuwa Somaliland ee xaruntoodu tahay magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Faroole waxa ay bacweyne kaga xirantay markii uu ay heshiis taariikhi wada gaadheen magaalada Abu Dhabi madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siilaayo heshiiskaas oo dhigaya in ay labada dal sii wadaan wada hadalkooda. Haddaba wixii intaa ka dambeeyay ayaa waxa aad heshiiska uga sasay qabiilka daaroodka gaar ahaan maamul goboleedka Puntland. ayaamo yar kadib ayaa waxa uu madaxweynaha Puntland bilaabay ololo uu doonayo inuu ku urursado ciidamadaas oo ku xareeyay magaalada Garowe xarunta xerada 54 halkaas oo ay maanta tababar ku soo xirmeen. Haddaba waxa isweydiintu tahay goorma ayaa ciidamadaasi qaadi doonaan dagaal mise halkooda ay ku seekaan doonaan waa loo joogi doonaa. maadaama ay raboorkii loo socdo waqti anna aan rabo inaan war naga ilaaliya hawiye wuxuu ku qurux badnaa oo ku duubnaa oo Soomaali ku ahaa oo insaan ku ahaa isku duubn daarood ku dhex jirkiisii xayawaan buu soo baxay. waxaan idin sheegay kablala wuxuu harti ku qurux badnaa kablala isku duubnaantiisii kabla markii ogaadeen qayb ka mid ah ka baxdayna waxa soo baxay dhaliilo badan oo la saari jiray dadka aan dib isugu noqono isa saxno qalacada intaynu ka baxaynana allihiin Allah haduu yahay hal dhabaha lagu socdo ilmaade riyaal khilaafka naga daayay oo ilmaade riyaal waa gumbaana gabdhaha yagu gumbaanuna gabdhaha daarood waa gumoodeen gunnimada may annagu gumbaan siinahay wili idinkana sii gumayseen ilmaade riyaal naga daayay gunnimada